dad aad u fara badan ayaa ku hambalyeynaya raallina ku ah waxyaabaha faa'iidada badan leh ee aad u soo gudbiso alla subxaanahu watacaala ha ku dhowro hana ku xafido ayay ku leeyihiin saa'ilka xigaa sheekhuna alfaadil ama ila talidani waxay ka socotaa wiil ama nin Soomaali ah wuxuuna leeyahay sheekhuna alfaadil waxaan ahay laba xaasle oo mid waxaan uga soo tagay dhulkii hooyo iyo geyigeennii hodanka ahaa ee Soomaaliya waxa uu leeyahay halkan ayaan gabar kale ku qabaa marka waxa ay leedahay war shaqo tagina ilaahay baa risqa bixiya halkan iska joog oo shaqo dhanba way iga hortaagan tahay ayuu leeyahay tii kale tan waxay leedahay warniyu nabil oo lacag noo soo diro waxna sii waxaan u dirana ma hayo anigiyaaba calooshayda maaragtay la hayaa oo hubaaraqe ayay dumarku u bixiyeen ragga qaar maanta jira marka wuxuu leeyahay taladu way iga ciirsan tahay haddaan shaqo aadana middan ayaa wuxuu leeyahay aan farxad dareemayn haddii aan shaqadii aanan aadinna taasina farxad ma dareemayso haddaan halkan shaqo bilaabana middan ayaa qaniiniisu leeyahay meel aan u dhaqaaqaan la ahay xaaladeeduna way murugsan tahay sheekhuna alfaadil maxaad igula talinaysaa ayuu ku leeyahay falyatafadal mashkuuran wamaajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاشني وسؤال بيرتشلع لغو رادين أيوه أدر مسؤولية دان أدقى قاضي أدر مسؤولية دان أدقى قاضي إلهي أكتي سنة ولقا ويدين إسلام باقوري إيوهي ستؤو هشقين له مدبا لمتقانا العقل صادر محان سمياه وحاد سمين أدا يقان waxaad samaynayso waa wuxuu ilaahay ku amray ninkii soo fadhiisa laga soo jiiftaa laga helaa soo joog qofka laga waayo soo jiiftaa laga helaa sooma adigaa gabdho muslimaada dusha saartay oo yidhi anigaa nin ah anigaa nin rag ah ilaahay wuxuu yidhi masnaa wa thulaatha wa rubaac waa run adiga soo adigu shafka maada tuman labadaa dumar ah adigaa lagaa doonayaa saad u wada dhaqi lahayd adigaa lagaa doonayaa saad cadaalad ugu samayn lahayd adigaa lagaa doonayaa sidii aad mid walba arsaaqadii alla kugu soo dhiibay iyo labiskii ay kugu lahayd iyo maxaa la yidhahdaa maskankii iyo gurigii ay kugu lahayd iyo daawadii ay kugu lahayd iyo tacliintii ay kugu lahayd xuquuqdii ay gabadhaa kugu lahayd adeer adaa lagaa rabaa maxay tahay oohintu awey raganimadaa ku guursatay awey raganimadii aad laba dumar ah aad ku guursatay awey waa maxay islaam baa le ha shaqaynin iyo waa maxay see lagu dhihi karaa ha shaqaynin soo xuquuq lagaama rabo soo ilaahay wax ka yacni waa maxay fikirka noocana ee inuu nin yidhaahdo islaamtii baa le ha shaqaynin maya xuquuqda waa lagaa doonayaa waa inaad labada reerba u shaqaysaa haye tanaa shaqayn hadday ku dhahdo ayadaa ku biili miya oo tii kalena yaa kuu biili waayahay midda kale ma nin la biilaa nin raga oo awoodi kara inuu shaqaysto taana kelimada ugu xadgudbin dembina iiga soo gaadhin nin shaqaysan kara oo caafimaad qaba oo nin rag ah ma qof dumaraad hoos fadhiisani war dumarka xooladu waa sun meeqa jeer baa idiin sheegnay ha isku taabanina dumarka xoolahooda u daaya dumarka xoolahooda caanaha ka cabbina u daaya ragga dumarka xoolahooda hadda ka hor su'aalihii halkana laga weydiiyey waxaa ka mid ahaa nin yidhi qof dumaraa waxay igu tidhi boorsadaada un soo qaado markaan soo qaatayna waxay leedahay sariirta markaad ku fadhiisanayso tartiiba ugu fadhiiso way jabaysaaye waad ogeydeen habeenkii wixii qaylo iga baxay een xataa kursiga raalli geliyey een sariirtii raalli ahoo ku idhi waad maqlayseen war dhurwaabaa ka calaacalay xoolaha dumarka xaggaydan ka martay maamahdii hore ragga soomaaliyeed midda kale adeer haweenaydan hadday ku dhahdo adeer fadhiiso ha shaqayna hadday ku dhahdo adeer ilmaha dhashay waxay ku arkayaan adigoon shaqaysanayn berri ma shaqaysanayaan adiga ragow waa inaan inagu qudwo noqonnaa waa inaan maamul noqonnaa dad lagu dayda waa inaan noqonnaa waa inaan reeraha maamulnaa waa inaan carruurteennaa shaqada barnaa markaan shaqaynay ilmahaygu uu shaqayn
markaan anigu wax qabanaya ilmahay waxbuu qaban markaan reerkayga caawinaya ilmaha nin wiilkuna wuxuu caawin doonaa xaaskiisa waa inaad adigu qof lagu daydo oo reerka dhaqaalihiisa iyo masruufkiisa iyo taladiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo adduunyadiisa iyo aakhiradiisa iyo qaraabadiisa iyo mustaqbalkiisa wareedha hoggaanka ninku waa ka ninka reerka mas-uulka ka ah waa inuu ufuqiisu iyo aragtidiisu ay waasic tahay oo intaasoo arrimood oo aan sheegnay ay ku guda jiraan laakiin adigoo nin rag ah oo laba dumara qaba in maanta la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa fadhiisay ileedahay ha shaqaynin waxa weeyaan waa dayac weeye xoolo waa dayac carruur waa dayac mustaqbal waa dayac xuquuq waa dayac adiga laftaada waa dullinimo adiga laftaada ah ha yeelin arrintaa ha yeelin arrintaa shaqee oo ayadana biilsii shaqee oo tii kale biilsii shaqee oo tigirhki aad tii kale ugu tegi lahayd shaqee si aad ugu tagto shaqee si ilmahaagu u arko inaad shaqaynayso berrina u shaqayso shaqee si ilmahaaga aad waxbarashada ugu fiican u geyso shaqee si aad ilmahaaga yacni dhar midka ugu fiican ugu gado shaqee si aad ilmahaaga tigidhadii fasaxyada waddamada muslimiinta ah iyo dalkii hooyo si aad ilmahaaga u geyso shaqee si aad raggaa uga mid noqoto shaqee si aadan qofna u baryin shaqee si aadan qof dumar u hoos fadhiisanin kharashkeeda hadhowta laguu dhihin muxuu qabtaa kan gurigu iska fadhiyahay wabillahi tawfiiq ما شاء الله شيخنا الفاضل جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى جسد الجنة كدق شيخنا الفاضل غيرها إيو عروت هذا إيو دنها قدنا الله سبحانه وتعالى هكو حفظه